الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد داوديال كسو دوادا مركا كوباد وحيث كسلامنا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta u fadhinaa nadwadii aan ku ballansanayn ee uguna horeysay ee ka baxda minbarul xiwaar ama miiska wada hadalka maanta oo ay taariikhdu tahay 1441 bishii 9aad 8deedii oo maalin jimco ah kuna beegan 2020ka bishii 5aad 2deedii barnaamijkan maanta waxaa marti noogu ah culimo sida idin muuqata ducaad ah oo khayr badan موضوع أن ما أنت يسوون نمد ربنا إن وددا كم مرتقانا وحويه الحوار الناجح وددا يفرديا هذا كم بلعبه دم كيجا بدح وحاجة فرديا الشيخ جراد مختار أبو منال الصومالي خريج جامعة إسلامية في مدينة المنورة وإمام وخطيب في مسجد التقوى والأخ شيخ مختار جراد وكسب بحي جامعة الجامعة الإسلامية في مدينة المنورة إسلامر كان خطيب إمام مساجد كوين التقوى وحا كسي حقا ولكن دنكا جميكتا وحاجة فرديا شيخ محمد شيخ عبد الله ويسوون خريج جامعة الرافة العالمية ومدير مركز الجزيرة للغات والدراسات الإسلامية وعوية ولكن شيخ محمد شيخ عبد الله وكسو بحي جامعة الراف سلام مركزنا مدير مركز الجزيرة للغات والدراسات الإسلامية ولكن شيخ جراد وحاطكها كفردية الأخ شيخ عبد الغني موغي دويا يسونا وخريج كسب بحي جامعة الرافة العالمية سلمر كان ومضح رابطة خريجي جامعة الرافة العالمية وحاي سونا برنامج كا نرفع اليوم مرتنا ولكن الشيخ أحمد شيخ محمود خريج جامعة الأمة ومدير نكاء مركز موقع وين دعوي لو يقانو معلم قرآن أونلاين وعن الله ولا لها ضمانتود كسو دوادا أنيقو هذا سو دوين يو ترحيبين يا ضمانتود كلكون كلمة waxaan ku bilaabaynaa waxaan intaan kelmadda bilaabin barnaamijka waxaan walaalaha ka codsanaynaa inay 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo ay ku soo koobaan maadaama aan walaalahana ay badan yihiin waqtiguna uu iska kooban yahay waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka ugu horeeya al-akh sheekh maxamed sheekh axmed sheekh maxamuud oo kamid ah muasisiinta barnaamijkan aan maanta u fadhino miiska wada hadalka ama minbarul xiwaar mowduuca uu ka hadlayo ama aan ku soo dhaweynaynaa ay tahay baahida loo qabay minbarkan asaasidiisa iyo ahdaafta uu rabo inuu taxqiijiyo minbarkani si uu macluumaad nooga siiyo isaga ku soo dhaweynayna falyatafadal الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله مرت شرفك يا علماء دينك يا خيارتا dhammaanteed waan salaamay waan u mahadcelinayaa haddii aan su-aasha uu sheekhu weydiiyey aan ku soo dhawaado baahida keentay minbarkan in la aasaaso waxaa ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed oo aad moodid inay aad ayna ku fiicnayn thaqaafada xiwaarka iyo maharaadkeeda haddii aan eegno bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo qoyska ilaa madaxdooda khilaafaadka soo dhaxgala ama khilaafaadka yimaada wasaaisha ay ku xaliyaan waxaad moodaa inay aad uga duwan tahay ta uu ku xaliyo caalamku qoyska Soomaaliyeed xaaska iyo ninkiisu marka iskhilaafaan
wasaaisha adduunku uu wax ku xaliyo laguma xaliyo inta badan xoogga inagu badan xoogga ayaa nagu badan waalidki iyo waladka hadaad fiirisid waa sidoo kale xooggaas nagu badan macallimiinta iyo ardayda iska daa waxa dhacaya waxaad moodaa in wali la joogo hadiyadii hore ee Soomaalidu ay xoolaha dhaqan jirtay laakiin في المقابل هذان إيجنا دتك عالمك ثقافة حوارك يدتك هنا إسقنعيان وميسك هذا الكل يسوي مادو وحول بو يمادنا لغودا ما يستو أي يكونوا لي هندتكو هدي هذا يكتور لنا علماء صوماليات مذاهب تذكر الدول يصير أي مجتمع مركا أي كجيران أي أودق مياه وحد مدائني iyada lafteedu ay tahay in dib u eegitaan in aan marka aan barnaamijkan asaasno hadii aad eegto culimada Suudaan oo kale iyo caalamka dadku iyaga oo fikirro kala duwan qaba ayay wada nool yihiin saaxiibo yihiin waxa ka dhaxeeya wada ilaashanayaan wixii ay isku khilaafsan yihiin miiska hadalka ay ku dhameystaan waxa laga yaabaa salaada maghribka inuu wadaad istaago fikir xambaarsan ka kalena uu cishayga istaago oo uu intii in leeg yiraahdo si nabad ahana inta la isu radiyo hadana dibadda shaaha lagu wada laakiin Soomaalida maxay sameeyaan waa lagu rafaaday camadii baa ku wareertay masaajidadii baa la kala xidhay مساجد كاهتجن عمدي بكوررت مركا إن ضدك صوماليات واللي يرادو ولما تضوا مسلمين لما تضوا إسكود مذهب مركا إن خلاف كيرة أود حياة ما خلافات كأود حياة أي ميسك ولا هذا الكل ما يسوي ويان ودبوي مركا وحيالها كينه بكمتاي نو مغضي وحيالها نو مغضي وحا كمدها إن مناظرات علميها أو أما دوده علمية سن أو مركا بلشة أود حياة oo marka ka baxaya masaajidadii iyo fagaarayaashii iyo marka telefoonadii oo dadka afkaartooda la isugu soo dhaweynayay inay jirin taas waxay keentay inaan ka fikirno minbar umada u dhaxeeya oo ay masaa'isha noocaas oo kala aha si cilmiyeysan oo aan xaraf lahayn in la isugu soo marka dhaweeyo marka waa maasantiin in haasa ku soo gabagabayn lahaa Sheekh Ahmed aad baad